heer qabdacow nasiib badan ayaad leedihiin intaanoo xildhibaana iyo mas'uuliyiin la socoto oo fara badan inay maanta idin timid oo ay dhibaatada dalkan haysatay oo qayb ah ka aheedeen ay maanta gurmad idinkaga yihiin ama idin garab taagan yihiin waa wax aad u wanaagsan nasiibkan aad idinka hesheenna dad badan ayaanan helin waxaan rabnaa xildhibaanada ayaa maaragtay hadalka sida badan qaatay hadalkuna haddii dadka loo jeedin indhahaaba faar laygaa qabtaa hadalku xaatay waa iga dhiye markii dadkaa la hadlilayo uma jeedo waxaan rabnaa marka ugu horrayso xildhibaankiina waa xildhibaan aad iyo aad u nasiib badan waana maaragtay wuxuuna ku muujiyey nasiibkiisa kartida iyo dadaalka uu sameeyey xildhibaanada aan u jeediino garabka ka taaganna maanta waxay asiga u yihiin garab bay u yihiin berrina waxaa la rabaa inuu garbo u noqdo ayaga meel dhiman deegaankay ayagana sidaanoo kale u abaabul lahaayeen waa dhiman yahay maanta marka waxay qod ka abaabulu hayaan deegaanada loo mari lahay iyo waddooyinkii loo mari lahay qoryaha in laga qaaday maaragta diyaar u yihiin asay u taagan yihiin muddo dheer 2 bil ugu yaraan waxay joogeen cadale meel kastoo laga howlgalayna way tagayeen intaas waxa waaye marinkii loo mari lahay meesha loo socdo ay ayagu u socdaanoo dadkii deegaankan sidaanoo kale ugu abaabul lahaayeen ayaa weli dhiman waxaan rabnaa annagana hadduu ilaahay yidhaahdo gobolka shabeellaha dhexe waxa ka dhiman dhinacaan hadda aan u soconno jihada lagu aadan yahay hal degmo iyo degmo haaf laga hayaa naga dhiman haddii xatee intaas la xoreeyo intaanan qoraxdhacan aadin gobolka shabeellaha dhexe meel kalaa laga heystaa dhinaca qoraxdhacna waa laga heystaa laakiin waxaan intaas meeshaas aan aadin xildhibaanadii annaga shalay garbaan naga taagnay ee na dhiirigeliyay ee nala socday ee abaabulka sidaanoo kale noola waday ee qoraxda iyo wakhtiga dhibka badan nala maray ma ka heraynaa berito yaa codka waa yarya weli ma codka mii qancani waxaan rabnaa sidaasoo kale inaan haddii balaayo hadday diriskaaga ku jirto in diriskana laga baxshay astaalkeeda haddaanaan diriska laga bixin waxay naqahaysaa inay kugu soo noqoto diriskaaguna ay baabi'iso marka diriskayna xatee ku dhaafi mayno intii ummadda soomaaliyeed meel ka mid ay ku jiraan nimankaas annaga maaragtay qalabkan ka daba qaadayna ballantaynu sidaas ma taha aad iyo aad aad u nasiib badantihiin madaxweynihii qaranku wuxuu u geeyey nuurdugle xildhibaankiina halaha uu sameeyey dadaalka iyo meesha uu maray berrina waxaa laga yaabaa inuu inta yimaado intaasuna dadaalay ku yimideen waxaan idiin sheegaynaa nimankaasi ummadda intay dhibi lahaayeen way dhibeen maantana way ka tageen ilaahayna ummaddaan uma soo celimaa ilaahayna nugu soo celimaa waxaan rabnaa shabaab kuma jiro hadda deegaankan aad idinku ku nooshihiin laakiin waxaa la rabaa waxa ku jira inaad maaragtay ma taqaanin jaanduug beer waa fali jirteen beeraad leedihiin jaanduug ma taqaanin haddaad sii jeesatay galabta soo bixi maayo kuwaasoo kalaa la rabaa inaad kawisiin shooka inta qaadatiin haddaad kawu diiddiinna idinkaa dhibaataan ka shaqeeya mase waa beentay waa taqaaniina u maleeya kuwaas codkiinna waa yidhi haddaad walaalnima ka rabtiinna waa abees idinku maqanoo faraq idinkugu jirto un idinkayn idin cunaysaa marka intaysan idin cunin inaad sharciga hor keentiin sharcigana la marsiiyo la soo ogaado ayagoo waxay dhihi jireen waa lagu dhaqaa naagtana waa lagu xidhaa naag ilma dhammaysa waad ay leey waa lagu sii nikaaxaya dadka dhihi jireen siday ilaahay beenta ay diinta ka sheegayna kaa dar dhibaatadeed marka waxaan rabnaa anagu noocaas dhihi mayno dad islaam ahaana laakiin waxaan tusaynaa waxaa leey nin la xiray inta ka gaabanaa layidhi derbiyaa la dhexgelaa derbigoo la hadlaa kadibna asoo fiicanoo ummadda dhexgeli kara ayuu imaaha hadduu ummadda dhexgeli waayana sidiisaa loo dhaafsiyaa ummadda lagu soo celimaaba waxaan idinka rabnaa marka jaanduugga asaa ku jiro reerka siduu xildhibaanka u sheegay waxaan rabnaa qoragii aan qoryahan meesha qaadda aysan qaadin oo dadkaan meesha noolaysa aysan noolayn dadkaan meeshay ku nool yihiin aan anficin muuqashiira u qabaana lagugubaa soo sheega waa idiin sheegaynaa kaas waa nuuc kale cid kale u shaqeeya nalama shaqeeya kaas haddii uu diido oo war idinka diido waa soo gudbaysiin asna waa la xiraa qoragan wiila u dhiibaysiin oo idinka aad ogtihiin aad u mahadsantihiin waxaan rabnaa inaan la hurdin
inaan la nasan meel lagu nasa iyo meel lagu hurdamo joogo intay nimankan kaadka noogu jiraan ninkii haayana hadda ha noo sheego mase waa beentayn ninka qoreeyo wata 9 bilood ku dhashay waana la mid waxa oo wato barnaamijyo waa sigiiska soo dhaadhacsho wata asoo wuxuu rabaa inuu annaga maartay nooga dhiga diinta islaamku waa yaqaaniin dadkan seef laguma islaamin xoogna laguma islaamin ilaahay ayaa la dooray islaamnimada waxayna ku qaateen qayaarkooda ku qaateen intaasoo oo sanayna maartay dad muslima yihiin hadday islaam ay yihiin ay diin u dagaalamayaan meelaha aan diinta ka jirin tagaan ka dagaalamaano hadday run sheegayaan ay islaam ay yihiin laakiin waxaan dilaa meel laga addimayo nin masaajidka ka soo baxay oo hadda ilaahay maartay hortiisa taagnay oo banaanka ba tigino wali qof bilaadan ma kala hadlina madax ka gooya koo kitaab akhrisaayna kitaabkan kor saara diinna waa sheegaha cidda uu sheegayo kaas asiga yaqaan waxaan rabnaa marka fulanimo wax tirimay fulanimana maartay malakamay naga cilimay haddaad cabsatid iyo haddaad maartay baqdid waxaa la yidhi doqonyaal lagaa dirnay u dagaalaada waa laga soo tegay hadda qoryihiina haysatiin galabta waa cayaarayseen dadku xoogaa waa naqaskaa ka bax ma cayaari jirteen ma sii ma jirteen heer qabd cuwaysan qaanaa laba nina meelaan fadhi jirta sidii tuma jireen laba qof oo soo bixi jirta xataa ma jirto ma beena sheegayna waxaan rabnaa hadda kadib yaysa kuwaas noo soo naqan wax aan raadihaynana ama aan ka hadlaynana oo madaxweynaha ku baaqay oo xildhibaanada qoraxda u taagan yihiin iyo maartay meelaha aan jiif fiican lahayn oo baadiyahan ay noola joogaan waxay tahay xornimadayna waa adduunyadana xornimada ayaa ugu sharaf badan intii la raadsho xornimada ugu qiimo badan waa inaad xor ahaatid oo qof xora oo ilaahay addoonkiisiya oo ma warraba aaday ma warraban ka danaysaa inaad ahaatid laakiin addoon ilaahayna qamaysiin anaa addoon ii taa lama qaada karo taasuna waxaa dhaantay geeri ma fahanta inaad maartay dhereg ku noolaatid ee dhereg gunnimo leh ku noolaatid waxaa ka roon gaajo oo gobonnimo leh inaad ku noolaatid waxaan rabnaa gaajana ma hayso oo xoolaynaa haysanaa xoolahaynay rabaa inay nugu noolaadaan ay guryahayna nugu cabiidsadaan ay deegaankayna nugu addoonsadaan ay gabdhahayna siday rabaan uga xadgudbaan annagana ka hadli karin waxaasina wax la qaadan kara maahan sharafka iyo karaamada bini'aadankuna qofka hadduu sharafkaaga u yimaado iyo hantidaada iyo naftaada u yimaado wax inaad wax daawo-marsatid waa xaaraan waxaan rabnaa markay qabdcow sidaa soo baxdeen in dadkeediyaa tihiin xildhibaankiinnu oo maanta idin matelaayana inta uu jiifo duurka waa ogtihiin welina waa idin garab taagan yahay xildhibaanadaana la kadaaliku dhammaantayna sidaasaa wada taagan inaan la nastana ma jirto ilaa shabaab ay waddanka ay ku jiraan ilaahay ummaddan u soo celima shabaab way tageen niyada ka saara way tageen shabaab ummaddaanna way dhaafeen dawladda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed qof la arkay gurigayga iga baxay tiri adiga gurigaaga ka soo gali marka hana noogu bararin marka gurigaaga hadad noogu haysido meesha ku weynaado dadka kala cuna marka qof la arkay gurigeeda ka cishate gurigayna aan ka cishanaanayna taas balantayna ma taa aad iyo aad u mahadsantiin shaqo wanaagsan markastana waa idinla joognaa waana idinku soo naqaynaa waxa laale wixii baahida ku saabsana hadduu ilaahay yiraahdo waxaaba u maleeyaa kuwa oo qoryaha ka yahay waxaan rabnaa maanta macawisleyda wax baan u keenne laakiin nimanka qoryo leh oo geesinimada muujiya la siiya kuwa guryaha jira la siimaa hadday soo kudaan hadhowta kuwa dambe wax ku leediinaa leey waa ogaanay dad hunguriga keenaya marka hungurigaas hadduu soo ordo hadda wax ku meyd hala yidhaahdo markii hali bannaanka jooga maalmahan iskale adiga waxaad leedahay kan dambaa leedahay horta 10 habeen iyo 20 habeen ha jooga asoo qasaasigan saas ma ballantayna aad mahadsantiin waxaan ballantaynu waa inaan shabaab la dagaalno shabaabna waddankeena ka sifayno jaanduuga taasaan